kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada waraysigan oo aan la yeelanayno Professor Maxamed Xaaji Ingiriis oo ah aqoon-yahan iyo cilmi baare wax ka qora arrimaha Soomaalida gaar ahaan arrimaha bulshada, siyaasadda, taariikhda iyo weliba sidoo kale arrimaha kala duwan ee dhaqanka. Professor aad baa kaga mahadcelinayaa waraysigaaga iyo waqtiga saad ugu hurtay kusoo dhawaad galbeed media. waa mahadsantahay dhamaan waa dhawa. Ayuu bixisaa ujeedada socdaalka iyo waxyaabaha ku saabsan. بسم الله الرحمن الرحيم socdaalkaygu wuxuu ka soo bilowday xuduudka u dhaxeeya deegaanka Soomaalida iyo Djibouti wuxuuna ku saabsanaa cilmi baaris aan waday oo dhowr qaybood ah oo deegaankan soo dhex gashay laba qayboodba u waaweyn yihiin tii daraawiishta oo deegaankan meelihii ay ka dirirta ka mid ahaa ama ay saldhigyada ka dhigatay iyo kii qabsadii Talyaanigu u qabsaday guud ahaan geeska Afrika oo dhan marka labada daraasad ayaan waday waxaa socda 5 gobol ayaan ilaa hadda maray oo gobolka Soomaalidu 11 gobol ka kooban yahay 5 kamid ayaan maray waxaan ka bilaabay xuduudka magaalada Galila marka gobolka Shaneele ayaan marka hore joogay dhinaca Djibouti ku aadan marka 4 gobood oo taariikhi ah ayuu leeyahay gobolka Shaneele saddex ayaan maray halna waan mari waayay afartu waxay kala yihiin oo ugu taariikh fog magaalada Jaldaza oo qalcadna loo yaqaano meeshii u dhaxaysay Harar iyo Saylac waxa ku xiga biyo qabooba waxa ku sii xiga Miyeeso waxa afar ah Aisha marka afarta goobood ee taariikhiga ayaan doonayay inaan bal codadkii dadka qiimeeyo waraysiina ku sameeyo marka waxa ii suuragali weysay inaan tago magaalada Miyeeso colaado ka dhex jiray Soomaalida dhexdeeda iyo Soomaaliya anfar arrimo nooca ku saabsan ilaahayna aan ka rajaynayo in la qaboojiyo la dejiyo ayaa meesha ka jiray marka magaalada Miyeeso taariikhdeedu ugu qiimaha badan waxay ahayd oo aan darsayay meeshii taariikhdii Lijiyasu boqorkii Ethiopia ee aan la caleema saarin muddo 3 sano xukumayay sanadihii u dhaxeeyay 1913 ilaa 1916 meeshii ugu dambeysay xukunkiisa si qiyaano leh loogu jibiyo oo amxaarada ugu jibisay ay ahayd marka Lijiyasuna wuxuu asalkiisa hore ahaa si abiisba Ras Makail oo marka hore la oran jiray Ras Maxamed Cali dad muslimiin ay ahaayeen oo amxaarada Walow muslimka gobolka Walow ka soo jeeda laakiin xoog lagu gaalaysiiyay laakiin inay ka muuqato ahaa in wali islaamnimadiisa uu qalbiga ku haysto kuwii afgambiyay amxaarada ahna waxay ku eedeeyeen inuu muslim yahay waayo wuxuu aad ugu qushuucay dadka muslimka ku hoos nool boqortooyada Ethiopia ama ay qabsatay sida Soomaalida anfarta Oromada marka Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan warqado badan ay isu qoreen isdhaafsadeen Lijiyasu haduu yahay nin dhalinyaro ahaa marka Harar oo saldhigiisa u batay iyo joogitaankiisa looga faa'iideystay marka asagoo soo maqanay afgambi ka sameeyeen Addis Ababa dad Hayle Salaase iyo gabadhii Minilik dhalay oo ilmaabtay ilmeed ay ahaayeen marka meeshaas aan rabay inaan tago laakiin way suuragali weysay waxaan rajaynaa xilliga dambe soo noqdo iyadoo nabad ah inaan Miyeeso imaado saddexda goobood waa tagay tusaale qalcado kale Jaldaza waxay ahayd marin muhiim ah oo Harar iyo Saylac badeecada iyo dadka iyo commoditieska waxa socdo dhan ay ku hakadaan laba waxa Harar laga qaaday Carabta loo dhoofinayo ama Hindiya loo dhoofinayo qarnigii 19aad meesha isu dhaafaan ay ahaan jirtay meel muhiim ah ay ahayd gubaysiguna daneynayo boqortooyada Ethiopia markay soo fidaysana daneynaysay marka xarun caalami ay ahayd oo ganacsiga iyo siday wax u wada iyo meeshii ayaan booqday dirdhaw ma jirin markaan tagay de raadad baa wali meesha ka muuqda xarun waxay u ahayd waaga qarnigii 19aad ugaaskii Ciise ugaas Roble ugaas Faarax gaalku markuu imaanayay asagu meesha kula kulmayay xilli waxay ahayd xun oo boqortooyada Ethiopia ay soo fidaysay ugaaskuna dalbanayay iyo dadka meesha ku noolba inay sidii isaga difaaci lahaayeen hubkina laga xiray oo Faransiiskii Djibouti soo fariistay oo u diiday dadka in ay hub qaataan Soomaalida ah haday deegaanka Soomaalida ku nool yihiin haday waqooyiga Soomaaliya ku nool yihiin meel kasto ay ku nool yihiinba marka xarun saa u muhiim ah anigana researchkayga muhiim igu ah waxaan uga sii gudbay ayadana tagay soo socodkayga markaan soo socday biyo qabooba oo ahayd meesha markii hore ay rabeen inay xuduudka ka calaameeyaan Ingiriiska iyo Faransiiska magaalo taariikhi ah ay ku suntan tahay oo magaalooyinkii hore ee Soomaalida ahaa meelihii Soomaalidu deganeed waxaan kaloo ayadana soo maray Aisha oo meel taariikhi ah haddana aan rajaynayo in
goob taariikhi ah laga dhigo oo la calaameeyo meel xasuuq uu ka dhacay 1960 bishii Agoost 13keedii maalin sabti ah dadka magaalada ku nool ee dad Soomaalida ku nool ayaa hiyay kacday waxayna la hiyay kaceen jamhuuriyadda Soomaaliya ee dhalatay 1 July 1960 marka calanka Soomaaliya la soo baxeen bil kadibna Haile Selassie boqorka Itoobiya oo soo amray ciidamadii qalabka sida Itoobiya xasuuq foolxun ayaa meesha laga geystay dad ilaa hadda tiradooda aan cayineen laakiin mar la leeyahay waa 300 mar 500 mar ilaa kun la gaarsiinay ayaa meesha lagu laayay oo wax garad leh oo ganacsato leh oo culimo leh oo haween leh oo caruur leh marka meelo lagu guraa dadka jira xitaa oo dadkii madaxa loogu guray oo weyn oo mar dhow la xusay sanad walbana xuska wuu socdaa marka anigu xus kuma soo gaarin laakiin isagoo idhaafaan tagay marka meeshaasna meel taariikhi ah gobolka Shabeelle ayaa dhulku yahay taariikhdaasna ay tahay in la aruuriyo lana sugo buug ayaa mar dhow soo baxay oo taariikhdii laga qoray marka waana la sii darsayaa wali wax badan oo naga qarsoona jira sidii wax u dhaceen deegaanka meel kale oo tagtay waa jirtay ilaa 5-6 goobood oo aflay gobol aad martay waxa ka mid ah Shabeelle kadib waxaan imid gobolka Faafan intaana Faafan iman waxaan soo maray Harar waxaan kala soo maray Haramaaya Hawadaay waxaan kala tagay Baabili waxaan raadiyay qoyska ay ka dhalatay fanaanadeeni weyneed Allah u naxariiste Zainab Xaaji Cali Siigaale baxsan reer Xaaji Cali Siigaale meesha deganayeen ayd marka dadkii ayaan daba taagnaa qiimaha lahaa ee deegaanka ka soo jeeday iyo meelahoodii ay ku soo barbaareen inaan arko marka waxaan kala soo maray dir dhawaayadana oo aan researcher ka sameeyay hal isbuuc Shimandifeerki shirkadii tareenka oo magaalada dhanba wixii ay ku aasaasan tahay feelal badan oo dadka Soomaalidu lahaa ayaan meesha ka soo koobiyeystay qaasatan dagaalkii labaad markuu socday iyo kii Talyaanigaba dagaalkii labaad wuxuu qiimo u lahaa waxay ahayd shirkadda tareenka Ingiriiska qabsaday marka uu Soomaalidu balaariyay shaqaalihi marka dad badan oo ka keenay jiray Muqdisho dad badan oo koonfurta Soomaaliya ka keenay kuwa waqooyiga ka keenaya ku soo beeray halka waagi hore Faransiisku joogay dadka laga qoray kaliya gobolkan Soomaalida iyo Djibouti oo kaliya marka mar la balaariyay oo xilli Soomaali nationalism ay dhacday ahayd marka feelasha dadka qabaailaadkoodii mushaarkii ay qaadan jireen xaasaskoodii carruurta ay lahaayeen wixii oo dhan oo meesha isku yaala feelkii ugu qiimaha badan oo ka soo helay wuxuu ahaa feelkii Ismaaciil Cumar Geelle Aabihi Cumar Geelle Betel oo madax ka ahaa meel yaro dir dhaba ka sii shaqeyso Soomaalidu hadda degan tahay wali degan tahay dhulkeedii ah oo la yiraahdo Afdam ayuu saldhigaas u haystay oo tareenku maro marka feelkiisii aan asna ka soo qaatay marka waxyaabo waxa uu talagashay inaad research ku samayso oo aad soo bandhigto haddii ilaahay maha qoraal inaan ka sameeyaan ugu talagalay marka dhulka kadib Harar horaan uga sameeyay research mar walbana ku laabtaa research meesha ugu weyn ka socdana waa museumka Cabdalla Shariif oo kutubo badan oo af Carabi ku qoran oo cilmi ah oo Soomaali laga qoray ee taalo wasna uu dhala galiyo xafiday ilaahay ka ajarsiiyay Cabdalla Shariif nin Harari ah weeye oo meesha degan gurigiisii uu qayb dhan ka dhigay Axmed Gurey wixiisi iyo wixii oo dhan oo haya waxaan kala research ka sameeyay archive-ka caadiga Harar oo ay taalo oo laga helay taalo warqad ku qoran af Carabi qoraal ku qoran oo dastuurka SYL ahaa 47 la garan la ayaa kii rasmiga inuu yahay ilaa gacanta ku qoran yahay inuu yahay mid yani gadaal laga sameeyo laga koobiyay kii xamar SYL Harar wax ka deganeed sardoonka Ingiriisku waa qoreen oo London way taala waa aragnay archive-ka ayagoo report ka qoraya sida dhaqdhaqaaq u socdo waa noo yaalan kuwaas marka kuwan meesha ku haray ayaan rabay inaan arko warqadaas oo hadda wali ay mutacalimiin Mareykanihii mid iyo kuwa Carabi ka doodayaan oo leeyihiin af Carabiga ku qoran waa Carabiga waaga naxwiisa Harar looga hadlayay oo bedelna ma aha kii xamar looga hadlayay marka ma nin Harariya u qoray oo xamar ugu qoray mise Harar lagu qoray lama garanayo waa la kala saari laayay marka iyadana Harar taasay muhiim igu ahayd magaaladana hadda waxaan tagay iyadoo taaladii Ras Makanan oo ninkii xoogga magaalada ku qabsaday la soo jibiyo dhulka la dhigay waagi safarkaygan safar ka horeeyay 5 sano horteed taalada hoosteedan sawirayay dadka imaanay meeshan galab dhan joogay hadda iyadoo bedelan oo dadku u arkay inuu ahaa nin umada xasuuqay oo gumaaday dhibaato geystay magaalada xoog ku qabsaday in dadkii magaalada u arkay fursadan heleen Abiy Ahmed oo ku yimid ayay ka tooreen meesha marka qiimo badan ay lahayd waxa ii suurgali weyd inaan lanqo oo Harar ka sii shaysan ayadana meel yara taariikhi ah waa meesha uu ka dhacay dagaalkii keenay in la qabsado Harar
sagaalkii January 1887 waxa hadda laga joogaa 136 sano sagaalkii bishaan in la xusay ahayd 136 guuradii ka soo wareegtay qabsashadii Harar jogolka waa tagtay laakiin waa dhaxgalay jogolka dad Soomaali asalkoodu yahan ku arkay oo af Soomaali safarkii hore oo aan af Soomaali garanayn laakiin Soomaali ah ii sheegay in dad Soomaali yihiin dareen Soomaaliyeed leh qoys dhan oo meesha deganaba ethnographic oo yahay wax ka qorayay oo masaajid ku agyaalana wiilkoodu ka yahay qadiib iyo marka Soomaali badan meesha ku nool Abaadir waa sheekhi ugu horeeyay magaalada asaasa Sheekh Abaadir heesta Xasan aan samatarna ku jirtay Sheekh Abaadir soo ururay caashiqa Abaadir hadda waxa sheegtay qabiil kamid qabiilada Soomaalida beel kamid beelaha Soomaalida inay ka soo farcameen marka sheekh weyn oo caalim ah marka wixii waxa la rabaa moogtahay kitabada in la dhex galo qoraaladii la dhex galo not only Harar in laga baarin Abaadir asalkiis Yemen aadino la xiriireysay oo aan isugu xirnayn Yementa koonfureed in ayadana la darso waxa qoraal yaala Eritrea in la darso Suudaan in la darso waa wax waqti dheer u baahan oo aan degdeg loo soo gabagabeyn karin laakiin the tentatively wax badan arkaysaa waarun amiiro badan oo Soomaaliya meesha joogay dabcan dad badan oo Soomaaliya ku noolaa Soomaali magaalo weyn soo wada eegaysay ahayd dastuurkaas Israel hadda Carabi ku qoran xataa waxa ku qoran in ay tahay kumeel gaar oo caasimada shanta Soomaaliyeed ee noqonaysa Harar meesha yaani danaynayaan in caasimad u noqoto in Harar noqon doonta ku qoran marka de Harar inay xataa ka sii maqaam weyn Muqdisho meesha ku muujinaysa way su'aasha Harar ugu dambaysa markii Harar ay Soomaalidu weydeen waxaad leedahay oo dhibaato ah soo gaadhay Soomaalida ama way kaankii Harar taasaan doonayay inaan ku tilmaamo tusaale taariikhda labaadna baadi goobay waxay tii Talyaaniga oo askar Soomaaliyeed soo qoray oo Ethiopia lagu qabsaday Ethiopia dhan ay u qabteen ciidanka Soomaalida marka 34 December dagaal ku bilowday kii Talyaaniga Ethiopia ku soo galay walwal iyo wardheer ku soo bilowday hadda aan tagay oo gobolka Doolla ah marka 36 May ayuu soo afjarmay dagaalka Talyaanigu marka wuxuu bilaabay markuu Ethiopia wada qabsaday inuu dib u qaabeeyo structure-ka Ethiopia dawladnimadeeda oo boqortooyo rigid ku salaysnayd oo feudal ah oo dadka la gumaysanayo beertoodii lagu ciqaabayo lacag canshuura madaxooda la dul saartay dadka iyo guriyihii wax walba oo dadku ku dhiban yahay markuu qaabeeyay wuxuu sameeyay gobol sameeyay dhowr gobol Tigraag iyo Amxaaradu waa isku daray waa isku qabtay Oromadan dhinac u saaray annaga Soomaali ah gobolkan Soomaali galbeed oo dhan wuxuu hoosgeeyay Xamar goboladan hadda koonfurta Ethiopia Sidama iyo Bali iyo dhinac uu maamulay kuwa kale dhinac Benishangul iyo dhinac ka dhigay marka Harar ayuu kaligeed gaar u gooyay waxa gooynayana Garaziani ma ahane waa Badooliyo asay ka sareeyay Eritrea ka soo duulay ninna generaalki Ethiopia generaalka Talyaaniga wuxuu ka yimid Asmara ninna Xamar ka soo duulay ilaa halkan uu maray marka kii ka soo duulay Asmara ayaa ka hormaray Garaziani waayo Garaziani waxa aad loogu celiyay Dirdhabe tareenada intuu jarjarayay tareenku doonay inaan lagu fakan way xil salaasa ku fakada tareenka intuu kala jarayay meelo badan iyo qabri dahar xogaa lagu celiyay ayaa keentay inuu 5 maalmood daa marka kaasa awoodi qabsaday Badooliyo meesha maamulay inkastoo Garaziani kaga dambeyn doono marka Badooliyo sidoo markuu qaabeeyay ayuu Harar ka gooyay waxaan hayaa marka warqad secret oo qoray Garaziani oo aan Talyaani ka soo qaaday 4 sano ka hor marka la fasaxay warqadihii sirta telegramka Garaziani inaan aqriyo qofka ugu horeeyay Soomaaliya dawladda Talyaaniga u ogolaatan aan ahaa inaan warqadahaas fiiriyo sirta oo 6 box ah kuwaas oo aaminsanahay dawladda Soomaaliya 77 hadii heli wax badan qabsoomi lahaa warqadahaas day aqrin lahaayeen waaga marka warqadihii mid kamid ah wuxuu leeyahay Garaziani wuxuu ka careysan yahay Harar talaga gooyay dhulka Soomaalida wuxuu leeyahay Harar oo Soomaali dhulkeedii laga jaray oo aan gooni u maamulayna Talyaani hadana waxa macnaheedu yahay inaan madaxa ka gooynay ummadda Soomaaliyeed waayo ayuu ku daray ciidanka Soomaali ila soo dagaal galay ee sida spiritka uu la dagaal galay meel walba ee dhulka ila xoreynay waxay ugu la dagaal galayeen oo yahaminayeen Harar inay caasimadooda noqoto oo ciidankaas wuxuu daneynayay intuu arkay dawladda Talyaaniga iyo oo mar dhowey dhalatay Talyaaniga dawladnimadeeda saa ogtaa qarniga 19 dhamaadkeedii dhashan waxay isla yihiin sida Talyaanigu nation state u yahay Soomaalina nation state ha noqoto askartana ku fakaraysa ee caasimadeena Harar hayday noqoto asay u sheegayaan habeen wal meesha markuu maray oo teena dhisto meel istaagay uga sheekeynayaan inay rabaan inay awood Talyaani oo kala Soomaalidu inay noqoto anigu hadda waxaan soo aruuriyay intii ugu muhiimsanayd aan uga baahnaa oo dhowr boqol aan soo aruuriyay laakiin waxaan waa kumanaan oo u baahan in la photocopy ama dawladda Talyaaniga laga codsado hadda waxay u tarayaan ayada ma lahan in aan nagu soo wareejiso deegaanka meel kala tagtay
gobolka qorraxay oo kale aad soo martay waxaan daawanay adigoo tagay mid ka mid ah dhismayaashii Sayid Maxamed Al Xasan balaayay lagu magacaabo sababkaas iyo shanile kadib faafanaan maray meesha labaad gobolkan faafan oo Jigjiga caasimada u tahay kadib waxaan tagay gobolka Jarar dhagax buur waxaan tagay saatilmaanta qorraxay qabri dahare gobolka Doolaan tagay asagana shanta gobolaan maray marka qalcadu meel waxay ahayd sayidku moogtahay markuu meel degada rag constructors ayaa la socon jiray oo watay wax la dhiso waxa kaloo mar jirtay Lijazu boqorka Ethiopia la saaray meesha saan kaaga sheekay oo sayidku warqad u soo qoray oo ka codsaday hub badan oo qobkan darandooriga u dhaca boobayaasha ayuu Ingiriis ka qabsaday sayidka marka hubkii qaar u shaqeyn lahaa marka Lijazu warqad u qortay wuxuu yiri waxa ii soo dirtaa bal wax ila hagaajiya marka Lijazu wuxuu u soo diray nin engineer oo Jarmal ahaa sayidku marka wuxuu fadhiyay waaga dhinacan Taleex markuu joogay ahayd marka wuu tagay boobayaashii wuxuu u sameeyay muddo la joogay muddo dheer soo ula joogay ayuu ninka daltabiyooday ninkii Jarmalka ahaa engineerkii oo nin gaalan ahaa sayidku meel uu ooday alla dajiyo yiri wixii uu sameeyaa hagaajiyaa waa nin farsamo yaqaan oo Lijazu adsaba la deganaa marka wixii markuu hagaajiyo wuxuu damcay inuu sayidku sheego yiraahdo waxaan rabaa inaan u laabto adsaba iyo dhulkayga Germany marka ii ogolow inaan baxo sayidkana waa diiday dagaal adag ku jiray marka ninkan haduu ka tago baabayaashan wax gaaraan hubkan wax ku sameeynay malagu isiri meeshu ku cishada marka ninkii fakada markuu fakaday ayuu dhaxda ku dhintay Ingiriisku way heleen wayna qoreen wayna sawir xataa waa ka qaadeen ninkii oo dhulka yaalo meyd ah oo la fiisi heleen iyo kobihiisi iyo wixiisi waxa la garan lahayaa marka ayaga Ingiriiskana garan lahayn taariikhyahanadina garan lahayn war ninkan mahraada u dhintay ma bahal baa ku cuna doorkan meelaha buuhoodle ka sokay dhulkan marka la soo galo booqiyo agaaradeedaas inta u dhaxaysa meelahaas laga helay ninkii meydkiisa Ingiriisku ka helay Taleexuna ka soo lugay inta soo carray jidku isaga socday ha meel u socday meel u socda xataa lama garanayo ma jidda galbeed adsaway galbeed jirta galbeed aad u islaha ma meeshi kugu dhow gaalku amxaar ku jooga tago islaha lama garanayo marka qalcadaas ayuu sayidku meesha ka samaystay marka hore lagu galay Madishe kadib Taleex uu soo carray kadib dawaata uu yimi faafan kadib adana bankan qorraxay uu sii galay qorraxay waqto ka sii baxay oo email ku sii dambeeyay email liftirkeeda waa tuu qalcad kala ka dhisay marka meel walba taga saas uu qalcad u dhisay marka tii u dambeysay daraawishtu ay samaysay tii u dambeysay sayidkuna de uu ku dhintay oo influenceadu sida la sheego ay ku dishay cudurka ku dhacay xanuunka uu u dhintay marka qorraxay qiimahaas ay leedahay gobolka guud ahaan taariikh ahaan waxay kaloo leedahay qiimo kale oo ah Talyaanigu markuu soo galay dhulka oo uu Ethiopia qabsanayay oo xamar ka soo duulay 3 maalmood muddo ku gaaris ayaa General Graziani Rodolfo Graziani lagu hayay inuu galo qabri dahare marka warqad ayuu ayadana qoray oo telegramo sir ah oo uu dirayo Mussolini hogaamiyay Talyaaniga oo uu leeyahay hadaan qabsado qabri dahare iyo guud ahaan qorraxi waxaan qabtay dhulkaan oo dhan gacantan ku hayaa ayuu leeyahay gacanteedu ku jira warqadina waa haynaa sayidka iyo rayid sidoo ha waqtigaas qasirta sayidka hadda waxyaaba aniga aan qiimeynayo waxa kamid ah oo aan eegayo warqadihii sayidka iyo governatorayaashi gudoomiyayaashii haystay British Somaliland berbera ama sheekh fadhiye isu dirayeen oo sayidkuna diray ayagana soo dirayeen sayidku marka carabiyo asoo wax ku dirsanayay kuwaana carabi ugu soo jawaabayeen laakiin waa turjumeen marka sayidka dominate gareynaya ayaga carabi waxay ku qortaa ayagana carabi ugu soo jawaabaan marka warqadihii kaydiyeen hayaan ay London dhigeen oo qaarna carabigoodii yahay qaarna af Ingiriis ay ku turjumayeen ay dhigeen marka xiriirka laba nooc ah sayidku Yurub la lahaa bilowgiisa hore horta sayidku markuu dhaqdhaqaaqan daraawiish u sameynay xiriirka Yurubtan oo la lahaa Muhammad markuu ciidamada aruursanayay ciidamadii u horeeyay aruursadana meeshan beero ka istaagay sayidka qabiilaadkii uu wacday oo u dhawaaqay habeen oo yiri ciidan ayaan doonayaa qaarna warqadu kula hadlay qaarna asaa u tagay markii labada qabiil u horeyso ciidamo ku caawiyay oo ciidanka ugu horeeyo ku soo tabarucay waxay ahaayeen habar Yunis iyo habar Jalo kadib waato buuhood agteeda dagay qabiiladii kale ku soo biireen bahgari oo asaga ka dhashay iyo cali gari
oo re'abtigii ahaa ku soo xoojiyeen marka dambana daraawiishda Soomaaliya oo dhan iska noqotay oo hadda 100 sano kadib qabiilada laga dhigaa in daraawiish qabiil gooni ahayd laakiin sayidku Soomaaliya oo dhan uu wacday bimaal ayaa xataa ku jiray oo soo galay habar gidira ku jirtay majartayna ku jiray cid walba ku jirtay oo soo galay hadda waxa jira nin la yiraahdo la taliyaashiisa kamid oo aan ka harin oo gaalkacay ka soo jeeday ilaa uu iimi ku dhintay uu la socdaa nin habar jeclana waa la socdaa nin majartayna waa la socdaa kama harin ilaa uu dhinto labadii indho garab taagnaa dadka dhan waa ka hareen caa'iladiisa ka hartay reer Sheekh Xasan Nuur Maxamed Cabdulla Xasan Nuur Allah reer Xasan Nuur qaarkood ka haray sayidka ayagu waa la socdaan laba la taliyo u yihiin waa ag taagan yihiin ilaa uu ka dhinto email la galeen waa la socdaan dhowr la oran jiray abshir dhowre ninka majartaan ma garan marka ilaa meeshaas sayidku uu hawshiisa sidaas ay ahayd xiriirkii marka uu Yurub la lahaa marka bilowgii hore intuu ciidamada aruursiga iyo waxan ku jiray dagaalkiisuna deesaan hadda ka hor tilmaamay maba ku wajahneenba Yurub iyo British bilowgiisa hore waa inuu challenge waa jiray oo uu arkay gaalka inuu meesha gardaro ku joogo bilowga hore governor ki fadhiyay Berbere asoo soo fiicnaayeen sayidku markuu ciidamada aruursada daraawiisha may bilowga hore maxkamadna waa sameeyay islaami ah oo dadka kala garsoorta maxkamadaas wixii ay qaadi weydo oo ama abiil ka qaata ama ay gartooda si u maareen weydo Berbere Ingiriiska u diri jirtay waa qoranta ingiriiska uu sheegayo le annagu noo soo xawilay wada shaqayn fiican aan nagala dhaxayso waa 1899 ka hor dhowrka sano ka horeeyay ama dhowrka bilood ka horeeyay wada shaqaynta annagii iyo Maxamed Cabdulla Xasan Cabdulla Xasan u yaqaan ayaga Cabdulla Xasan waa isku fiican ay leeyihiin marka dambe dagaal ku bilaabeen oo asagii ayaga gardarnaa Bridge-ka gardarnaa oo ku duulay waxa sababay markuu hub urursi ku jiray hub asoo urursanaya qoray niman laba nin oo askartii Ingiriiska ahaa ayaa qoray Ingiriiska ka soo qaatay oo ka gata asaga qoray qiimo badnaa marka qorigii dhaynta warqad u qoreen governorka warqad soo qoray soo celi waa laga soo xaday qorigaana cid ka xaday u raadso yiri Sheekh Maxamed Cabdulla Xasan meeshaas xabadoodu bilaabatay waa ku soo duuleen iska dhicintiisay noqotay muddeena isla hardamayeen muddo 20 sano inkastoo dhextaal jiray dhowr sano eel uu fadhiyay oo heshiis la kala galay ay jirtay Bestaloza treaty loo yaqaan 1945 la meel mariyay ilaa iyo 12 heshiis dhowr sano shaqeeya jira oo Ingiriiska iyo sayid kala galeen oo Talyaanigu dhexdhexaadinay inaan waxba la soo raacan lana kala joogo ma ku guuldareysteen marnaba isku dayeen ama sayidka iyo daraawiishtu in ay Ingiriiska heshiis oo xal aan xabad ahayn dhowr mar offer la siiyay sayidka loo offer gareeyay in wada hadal la furo sayidku laakiin waa diidanaa cid kaliya ku ogolaaday in wada hadal la yeelo Talyaaniga ahayd oo marka Ingiriiska dagaalka xoog leh ku wada jireen iyo Axmaarada oo aydan Ingiriiska u soo raacday afar dulana lagu qaaday ninkan sayid waxa la dhahaa for expeditions waxay u yaqaanaan afar jeer la soo weeraray oo weerar iyo meel walba laga soo galay kii u dambeeyay cirka ahaa laakiin weerar all out war ah ay ku soo qaadeen afar jeer mar koowaad soo weeraran wajibi mar labaad soo weeraran waa iyaga ku jabay markii saddexaad waxay u soo wateen Axmaarada 15,000 oo ciidan oo Amxaara ah ayaa jigjigadan martay oo ilaa war dheer iyo walwal tagtay gabayo sayidku sheegaan qabiilada kamid ah sayidka qabiilka weyn oo asagu ka dhashay kuwa kamid ah Amxaarada wada gabay ku sheegay kuwaas ay ugu jiqsiinayaan Amxaarka marka meeshaas ku muujinay inaysan daraawiish qabiil ahayn hal qabiilo ku wada jirana male hal qabiilo ka soo wada horjeedana male qabiilada inta waa jireen qaar kuwa hadda aan ku tiriyay sayidka la socda dhinac kale ka soo jeesanaya jiray oo Ingiriiska soo waday marka kii afraad nawaakide oo sayidku ku galay nugaal oo ku galay oo u gambiyay intay war dheer iyo walwaal iyo dhulkan dhexo dhan ay ku xiratarareen kaas xiiso badan u lahaa oo hobby ka soo dageen afar jiha looga qaadan weerarka kii afraad waa kii la rabay in lagu qabto asaga Berbere kuwa ka galay hobyo kuwa ka galay halkan kuwa ka galay dhaxdaan hoose Talyaaniga xiraa la yiri soo fakan hobyo markuu soo degay waxa joogay suldaankii wiilkiisa suldaan Yuusuf Ali Keenadi wiilkiisa Ali Yuusuf markaas meesha joogay odagay asagu bana waa ka xun yihiin waxaan laakiin dadkii deegaanka la yiri geelkeena dadkii deegaanka hobyo deganaa laba qabiil deganay geelkeena la yiri oo lagu raro hubkan Ingiriiska ee lagu geeyo ilaa iyo wareer oo saldhig ka dhigtay dadkii deegaanka waa diideen waxay dhahan nin muslim ah oo gaal ku duulayso anaga geelka ma gadi waa qoranta Ingiriiska qoray
waa noo diideen uu leeyahay dadka deegaanka waxay dhaheen anaga gaal duulayo muslim u socda waxba kuma darsan karo geeli wixii la carreen iyo lo iyo ari waxay haysteen waa diideen meesha waa markaas marka la xirayo waa maqasho Soomaaliya Yuusuf Ali Kennedy suldaankii iyo wiilkiis in la xirayo eritrea mar la geeyay markaasay dhacday laakiin maxaa sababay professor in mabda'a daraawiishta ay Soomaalidu dhammaan ku qanciyeen waxaa sababay dhowr arrimood waxaa ugu muhiimsanaa hogaaminta sayidka oo ahaa nooc ku cusub Soomaalida noocyo hore oo taariikhdooda ku jira oo dad dictatorra ay soo baxeen oo ay dadka maquuninayaan oo dadkuna uu jabinayo waxaa ka mid ah boqortooyadii u juuraan oo kale markii u dambeysay ayaa waxaa qabsaday nin ummadda canshuur badanna ku rogay dadkina yara salciyey waata qabiilo inta ku duuleen ay jabiyeen mar walba Soomaali taariikh waxay u lahayd haddii nin inta soo kaco uu xoog ku qabo maago inay jabiyaan leadershipkii aqbalayso waa leadershipka u qabow compromise ku socda iyo consensus ku wado kaasaa mar walba ku dhex liibaana Soomaalida laakiin kan isku day inuu xoog ku qabto ama dilo waxba kama faa'iido marka sayidka horta marka koobaad in lagu wada qanci waayo waxaa ugu wacnaa leadership attitude-kiisa qaabkiisa hogaamineed ayaa horta wuxuu ahaa qaab Soomaali dib waagaa joogtay ee la yaaban tahay dawaa maqashay garta u qaado ama go'aanada u gaaro inay ka mid ahayd hebel waa xujoobay oo qofkii la dilayo waxyaabaha ugu badan ee ka dida beesha asaga ka dhashay ka mid tan asaga u dhashay oo rabtay inay taageerto garab u noqoto waxyaabihii ay ka dideen ay ka mid yihiin waa xujoobadan intuu dhex yimid hebel wax joogay macnaha qofkii mabdiisa diidan ama qof mawqif